بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته caawa casharkanaga sideedaad wuxuu la xiriirsan yahay casharkii hore ee toddobaad weli waxaan ku jirnaa formatting text caawa marka waxaan baranaynaa laba qodob ama saddex qodob iska dheh qodobkan ugu horeeya wuxuu noqon doonaa to change the text case oo ah sida arrinka farta wax looga bedelo iyo to change text alignment iyo sida qoraalka jihooyinkiisa wax looga bedelo sida ognahay qoraalka farta laatiinka ah waxaan carabiga ahayn waxaa la dhahaa laatiin waxay ka bilowdaan dhinaca midig dhinaca bidix ayay ka bilowdaan andhe waxayna u socdaan dhinaca midigta marka sida dhinaca qoraalkaas midigta ka bilaabanaya loo geyn lahaa dhexda ama bidix ama midig loo geyn lahaa ayuu ku saabsan yahay qodobkanaga labaad ee ah to change text alignment ugu dambeyn waxaan arki doonaa hadduu ilaahay idmo shortcutyada iyo habka loo sameeyo marka si aan tusaalaha ugu gudubno waxaan aadaynaa qoraalkan yarka ayaan ku sameynaynaa sida hore usoo qaadanay ama aan u ogeynba mar walba ood doonayso inaad qoraal ka bedesho qaabka uu yahay ama kalar ka bedel ama farta wax ka bedelay waxaa muhiim ah ama ay tahay inaad qoraalkaas dooratid tusaale ahaan marka qoraalkan aan fiirinaynaa si aan qoraalkan wax uga bedelno oo aan ugu sameyno to change text case-ka si aan u sameyno waxaan tegaynaa marka hore horta qoraalka aan rabno inaan wax ka bedelno ayaan waxaan saaraynaa har sidaa markaan harka u saarno waxaan tegaynaa halkan a capital iyo a small letter ay ku qoran waxaa arkaysaa halkaas markaad dul saarto muuska inay soo qormeyso change case waa halka qoraalka fartan wax uga bedeli kartid haddii carabka yarka aad taabatood soo furto halkan waxaa ku qoran sentence case lower case iyo upper case iyo capitalize each word marka mid walba waa fiirinaynaa midka hadda upper case haddii aan ku dhufano kale hadda waxaa arkaysaa gedo jiida ama ga-da inay weyn tahay saddexda xarfood oo kalena ay yaryar yihiin upper case-ka haddaa ku taabato waxaad arki doontaa in isbedel dhici doono sidaa aragtaba wixii oo dhan waxay wada noqdeen capital ama xarfo waaweyn bay wada noqdeen change case-ka marka waa noocaas in qoraalkii case-kiisa ama arrinkiisii aad wax ka bedesho oo hadday yaryar tahay aad ka dhigto mid waaweyn hadday waaweyn tahayna aad ka dhigi karto yaryar haddii aan mar kale ku noqono change case-ka haddaan ku noqono oo aan halkii soo furno haddana lower case haddaad dhahdo waxaa arkaysaa in qoraalkan uu yaryar wada noqon doono sida aragtaba hadda gedo waxay noqotay xarfo isla wada eg oo small letter sidoo kaleento haddii aan ku fiirino capitalize each word oo aan ku dhufano waxaad arkaysaa in erey walba capitalize each word marka la dhahayo xarafka ama word kasta midkiisa ugu horeeya bes ayaa isbedelo inta kaleento wax saameyn kuma yeelanayo marka midaas hadda waxaan ku fiirinaynaa qoraalkan badan bay ku fiican tahay si aad u aragto ilayn hadda kan hal ereyba waaye halkan ereyo badan baa ku jira si aad u aragto si erey walba midkiisa ugu horeeya wax iskaga bedelayo sida hore iskula naqaanayba waxaan saaraynaa har ama waa select garaysanaynaa kadibna waxaan tegaynaa halkii ay ku qorneyd change case markaasaan u tagna carabka yarka aan soo furaynaa hadda haddaan dhahno capitalize each word waxaa arkaynaa in xaraf walba ama erey walba midka uu ka bilaabanayo uu weynaanayo sida hadda aragto wa'di waa weynaatay xarunta xa'di waa weynaatay gobolka ga-di baa weynaatay gedo ga-di baa weynaatay da usoo horeysaa weynaatay soomaaliya sad marka xaraf walba ama aan dhahe word kasta ama erey kasta waxaa weynaanaya midka ugu horeeyo waxaa la dhahaa capitalize each word ayadoo saas faahfaahin weli noogu saaran tahay haddii aan ku dhufto lower case haddaan dhaho waxaa arkaysaa in waxaan dhan ay yaryaraanayaan iyagan oo hal nooc isku wada noqonayaan hal xaraf oo weyn kuma jiro lower case haddaa mar tiraahdo erayada small ama yaryar bay wada noqonayaan iyagoo dhan haddii aad ku dhufato sentence case oo ah midaas ugu koreysa waxaad arkaysaa iyadana in maxay ahaydee halka xaraf ugu horeeyo ama qoraalka wordka ama ereyga hore ugu horeeya bes ah uu weynaan doono sida aragtaba wa'di bes ayaa weynaatay inta kaleento waa wada small marka change case-ka sidaas ayaa loo isticmaalaa markaan waxaan u gudbaynaa alignment wax kale maahan waxaa weeye
qoraalka inta badan dhinaca bidixda ayuu ku qormaa, laakiinka wuxuu noo socdaa midigta. tusaale ahaan marka dhulbeereed oo kaleenta baan soo jaraynaa. ereyga markuu sidan yahay, si aad u geyso dhexda oo kaleento, har ayaad saaranaysaa horta hore. wax walba qoraal markaad bedelayso waa inaad doorato ama har aad saarto. markaas har u saarto, waxaad rabtaa oo kale inaad halkan dhexda keento, waxaad isticmaalaysaa alignmentiga la sheegayo waa saddexdaas xabo isgarab taalo. haddaan center haddaan dhaho, qoraalkuu soo boodo, waxaad aragtaa inuu centerka yimid. haddaan kusii dhufto dhinacan kaleento, right-ka ayuu tegayaa. haddii aan dib usoo laabto, wuxuu imaanayaa left oo ah halka uu ka bilowdo. kaas waxaa la dhahaa alignment. marka hadda waxaan sameynaynaa amarka kaleento asna la dhaho justify. marka alignment iyo justify inta badan way isgarab yaalaan. saddexdan ayaa waxaa la isku dhahaa alignment oo ah jihab qoraalka ama jiha qoraalka sida loo bedelo ayuu intaas sheegtaa saddexdan. haddana waxaan fiirinaynaa justify oo ah in la simo yacni qoraalka. hadda qoraalkan oo kaleento habeen horaan simay oo justify baan ku sameeyey. marka inta hadda waxaa aragtaa inay saddexdan line siman yihiin. kan waa lasoo buuxin lahaay ee uu soo gaari waayey. hadda ayaan sameynaynaa markaasaan qoraalka har u saarto ayaa waxaa ku sameynaysaa justify. justify waxaa la dhahaa linekan asagana dhinacaan yaallo, fartaa yarta ayaad soo furaysaa, kadibna justifyda midda u horeysa ayaad ku dhufanaysaa. waxaa arkaysaa in qoraalka hadda isdaba marmarsanaa ay wada silmeen. si aad markaan kuu tuso oo ku noqonaynaa, saan usoo celiyo. hadda wakaa qoraalka waxaad aragtaa in lineba lineka ka dambeeyo uu ka hooseeyo ama ka yaryahay. haddaad laakiin markaad saan halka u saarato, halka justify dhahdo, waa isku buuxinayaa laymankii. waxaanaad arkaysaa inta line oo kuu qornayd inay isla wada ekaadaan oo labada dhinacba ay ka sinaadaan, dhinacan leftiga ah iyo dhinacan right-ka ah labadaba inay ka sinaadaan. qoraalada inta badan dhinaca leftiga markay ka bilaabanayaan waa ka siman yihiin, sababtoo ah mastarada ayaa halkan ka xiran. balse dhinacan midigta markay kusoo dhammaanayaan way kala yaryar yihiin inta badan. marka amarkan ayaa la isticmaalaa si loo simo. marka haddaan intaas uga gudubno saddexdii qodob oo ahaa alignment iyo qodobkii dheeriga ahaa ee justify ee ahaa sida qoraalka afkiisa midige loo wada simi lahaa, waxaan fiirinaynaa markaan sida loo sameeyo shortcut-ka alignmentiga. hal erayaa marka soo qaadanaynaa waan ku sameynaynaa tusaale. markaana waxaan ku qoranaynaa garbaharey oo kaleeto. garbaharey waxaan rabnaa inaan geyno dhexda, har ayaa saaranaysaa. marka waxaan isticmaalaynaa shortcut si aan dhexda u geyno garbaharey. waxaan taabanaynaa control iyo e. control e markaad taabato waxaad arkaysaa inay garbaharey centerka timid. haddii aad haddana marka la taabato control iyo r, garbaharey waxay tagtay dhinaca midigta ayay tagtay. haddaad rabto inaad kusoo celiso halkeedii hore oo bidixda ahayd, waxaad taabanaysaa control iyo l. sidaa aragtaba shortcut-kana sidaas ayaa loo sameeyaa oo qoraalka dhexda iyo midig iyo bidixba waad ku kala geyn kartaa adoo isticmaalayo shortcut-ka. intaas ayuu caawa cashirka inaga ku idil yahay. ramadaan kariim.